ayadoo waxaad gabar iska caadi ah dhigatan iskuul. Hal maalin ay waxay ogaanaysaa inay tahay amiirad, laakiin sidee bay ula qabsan doontaa? Laaban saaxiibayaal kusoo dhawaada channelkeena Khafiifo Bro. Kale iyo film kale oo cusub. Filmkan wuxuu ku bilaabanayaa gabadhan oo lagu magacaabo Mia. Waxayna jirtaa 15 sano, sidoo kalena waa gabar xishood badan. Waxayna la nooshahay hooyadu aana artist. Sidoo kalena waxay ku nool yihiin meel dib loo hagaajiyay oo ku taal San Francisco. Mia waxay dhibaatoonaysaa inay saaxiibo ka samaysato iskuulka. Gabdhaha iskuulka mar way ka xanaajiyaan, mana doonayaan inay ka dhigtaan saaxiibo. Gaar ahaan gabar lagu magacaabo Lana way ka xanaajisaa mar waliba. Mia saaxiibada kaliya waxay la tahay gabar oo lagu magacaabo Lily, ayadana sidoo kale gabar xishood badan. Miana waxay jeceshahay wiil lagu magacaabo Josh oo ah saaxiibka Lana. Maalin Mia waxay arkaysaa Josh Lana isdhoonkanaya, kadibna waxay fikiraysaa qofkaas in ayada ay tahay. Mia waxay darteemaysaa Josh waliba dadka dhacaysa fasalka. Sidoo kalena Josh qof kalsooni badan, wuxuu hadlayaa si degan, qof walbana wuu sacbinayaa. Rood markay soo gaarto Mia waxay hadal karwaayaysaa, hadalkeeduna uu istaagaya oo ku dhigayaa hadalka. Isla markaasina fasalkoodii la wada qoslaya. Mia way xanaaqaysaa, sidoo kalena way xishoonaysaa, way soo cararaysaa. Kaasi qof walba wuxuu bilaabay inuu ku maadeysto. Markay ka dhammaado iskuulka, hooyada waxay u sheegaysaa inay u timaadii ayadii aabeeda dhalay, walibana ugu timaaday San Francisco. Ayadu waxay ka timid Genovia, waxayna doonaysaa inay aragto Mia. Gabadha Mia way yaabaysaa, waxayna isweydiinaysaa sababteed u timid ayadeeda, sababtoo marka hore ma aysan la xiriiri jirin ayada. Maalinta xigta markay ka timaado iskuulka, Mia waxay tagaysaa ciwaanka loo sheegay, waxayna hor istaagaysaa guri aad weyn hortiisa. Qof ayaa soo dhaweynaya, isla markaasina wadaya wuxuuna u geenayaa ayadeeda. Ayadeeda magaceeduna waxaa loo magacaabaa Clarice Ronaldo. Markaas Mia waxaa loo sheegayaa ayadeed inay tahay boqorada Genovia. Genovian waa dal yar oo ku yaala qaaradda Yurub. Sababta ayadu timidna waxay ahayd Mia inay u sheegto aabeed inuu ahaa dhaxal sugaha boqortooyada. Aabeed wuxuu ahaa amiirka Genovia, maadaama uu dhawaan dhintay. Mia hadda iyada ayaa ku xigta carshiga Genovia. Markii hore Mia waxay umaleynaysaa ayadeed inay la kaftamayso, laakiin waxaar kadib waxay fahmaysaa runta. Waxay ogaanaysaa waxyaabahaas la sheegayo oo inay run ay yihiin. Aad bayna ula yaabaysaa markay ogaato inay tahay amiirad, waxayna mas'uul ka noqonaysaa dal dhan. Boqoradu markaan waxay u sheegaysaa Mia inay u guuri doonto Genovia, waxayna noqon doontaa qof ka duwan sidii hadda ay tahay. Mia waxay ka yaabaysaa dhammaan hadallada ay u sheegayso ayadeeda. Markaasayna diidaysaa inay noqoto amiirad, wayna cararaysaa. Markay guriga ku laabatana waxay ku xanaaqaysaa hooyadeed, sababtoo runta ay ka qarisay. Waxaana sii ogaanaysaa waalidkeed markii ay kala tageen inay go'aansadeen Mia inay la noolaato hooyadeed. Waxayna rabeen inay kusoo barbaarto nolol iska caadi ah. Sidoo kalena waxay qorsheeyeen inay u sheegaan markay gaarto 18 sano, laakiin hadda aabeed uu dhintay, sidaas darteed mas'uuliyadda waa inay ayada qaadaa. Maalinta xigtana waxaa wada hadlaya Mia hooyadeed iyo boqorada. Boqoraduna waxay rabtaa Mia inay dunida u soo bandhigto, weliba inay sheegto inay tahay amiirad. Laakiin ka hor intaas midaas sabin waxay rabtaa inay barto sida loo noqdo amiirad. Aad bay ugu soo horjeesanaysaa fikradaasi, laakiin hooyadeed ay ku khasbaysaa inay qaadato casharada amiirad si ay markaas go'aan u gaarto. Haddii ay rabto inay boqorad noqoto, waa inay arrintan qarisaa ilaa xafladda weyn laga gaarayo ama xafladii ayada lagu caleemi saari lahaa. Boqoradu waxay Mia u diraysaa nin la yiraahdo Joy oo ah madaxda ammaanka. Joyna waxaa loo xilsaaray inuu ilaaliyo Mia ilaa dunida loo sheego inay tahay amiirad. Sidoo kale waxaa la siinayaa gaari weyn si ay ugu tagto iskuulka. Wadada ku socotana waxay soo qaadaysaa saaxiibadeeda Lily. Lilyna aad bay ula yaabaysaa gaarigan weyn oo ay wadato Mia. Markay ku soo laabato iskuulka, Mia waxay tagaysaa goob lagu hagaajiyo baabuurta. Waxayna ogaanaysaa gaarigeeda lagu hagaajin doono $400. Walaalka Lilyna oo lagu magacaabo Michael wuxuuna ka shaqeeyay halkaasi muddo dheer ayuu meeshaas joogaa. Sidoo kalena wuxuu jecel yahay Mia, laakiin ayada ma fahmayso dareenkiisa, mana qiimeynayso isaga. Kadib Mia waxay aadaysaa guriga weyn si ay u bilowdo casharkeedii ugu horeeyay ee amiiradnimo. Boqoradan waxay ka hadlaysaa muuqaalkii Mia, waxayna u sheegaysaa waxyaabaha ay tahay in la bedelo. Waxayna sidoo kale baraysaa sida saxda ah loo istaago iyo nadaafadda, waxyaabaha munaasib ku ah markaasi amiirad. Maalintaas kadib Mia waxay baranaysaa dhammaan anshaxa boqortooyada, laga bilaabo ciyaarta qobka ciyaarka ilaa cunto cunista iyo sida la isku soo bandhigayso ayada. Inkasta markay ka soo laabato iskuulka, Mia waxay tagaysaa guriga weyn si ay u soo qaadato casharada. Sababtaas awgeedna Mia iyo Lily waqti far badan iskuma helayaan, maadaama Mia ay tahay saaxiibta kaliya ay haysto Lily. Lilyna markaan way cidloonaysaa, maalmo yar ayana sidaas sii ahaanayaan. Maalin boqorada waxay casuumaysaa nin Talyaani ah oo timir jara ah laguna magacaabo Paolo. Wuxuu takhasus u leeyahay make-upka. Miana wuxuu ku ammaanayaa quruxda dabiiciga, inkastoo wejigiisa waxyaabo kale uu ku muujinayo. Paolo iyo kaliyihiisaba waxay sameynayaan sunniyaha iyo toosinaan iyo timaha Mia. Wejigeeda iyo cidiyadeedana sidoo kale waxay siinayaan daryeel si ay u noqoto gabar qurux badan, sidoo kalena soo jiidasho leh. Haddana wuxuu ka jibinayaaba ookiyaalaheeda, wuxuuna ku khasbaya inay xirato lenses. Waddanbeen Mia waxay noqonaysaa qof gebi ahaanba ka duwan sidii hore ay ahayd. Boqoraduna aad bay ula dhacaysaa muuqaalkan cusub ee Mia ee la soo baxday, laakiin Paolo wuxuu ku amraysaa arrintan inay noqoto mid sir ah. Maalinta xigtana Mia iyo Joy waxay u soo baxaan inay Lily ka soo qaadaan iskuulka.
iskuulka. Michaelna markuu arko Mia quruxdeeda aad buu ula yaabayaa, laakiin Lily kuma faraxsan isbedelka ay sameysay Mia. waxayna u malaynaysaa in Mia isku bedelayso gabdhaha xunxun ay joogaan iskuulka dartooda. ku qasbaysaa Mia inay xirato koofiyad foolxun si ay u qariso timaheeda. labadooda markaan iskhilaafaan weliba si weyn isku khilaafayaan. Lily waxay ka baqaysaa Mia mar un inay ka tagto. Miana markay aragto saaxiibadeeda oo sidaas waxay u sheegaysaa runta oo dhan. Lily aad bay ula yaabaysaa, laakiin waxay ogolaanaysaa inay ilaaliso sirta. Miana waxay u sheegaysaa arrintaas inay tahay kaliya badbaadadeeda darteeda. ka dhexdiisa Alana waxay Mia ku qasbaysaa inay iska bixido koofiyadda. kadib markay iska bixiso qof walba markuu arko timaheeda quruxdeeda wuu la yaabayaa. maalinta xigta Michael wuxuu Mia ku casuumayaa bandhig music. isaga wuxuu jecel yahay musiga, wuxuuna rajaynayaa inay u timaado si ay u daawato isaga heesihiisa. kaas Mia waxay ka ballanqaadaysaa inay imaan doonto, laakiin Sophie isku bedelaysaa. iskuulka soo gaartana waxay arkaysaa wariyaal fara badan oo meesha joogaan. welibana ayagoo raba inay weydiiyaan inay tahay ayada amiirad iyo in kale. aan sirtii way baxday. cabsidii ka gicin wuu bilowday, laakiin sirta Mia waxay galaysaa dhibaatooyin fara badan. ayadan oo malaynaysaa waxaana oday inay sheegtay Lily, laakiin Lily waxay ku dhaaranaysaa inaysan ayada sheegin. arrintu markay faraha ka baxdo boqoradu waxay imanaysaa iskuulka, waxayna ogaanayaan in Paolo ninkii qurxinta sameynaya uu warbaahinta u sheegay. wuxuuna sidaas u sameynaya si uu u noqdo qof caan ah. fiidkii xigayna boqoradu waxay qabanaysaa casho boqortooy, waxayna Mia tusaysaa boqorro iyo amiirka kala yimid dunida. markan si fiican ay u sii socotaa, laakiin Mia si kamaayo waxay u qabanaysaa gacanta qof marti ah, waxayna gelinaysaa baaldi baraf ah. markay isku dayday inay saacdo adeegayaashu wayba dhacayaan. Miriya ayna ku daadinayaan martida. boqoradu madax ay qabsanaysaa, sidaasayna ku qasqasantay cashadii. laakiin martidu ay qoslayaan, arrintan way iska dhaafayaan. tababarkii xigay si ka duwan wixii Mia ay filaysay. boqoradana kama xanaaqayso, xitaa waxay joojinaysaa dhammaan kulmadeedii si ay maalin qurux badan oo la qaadato gabadhii ay iyada u tahay. markaasayna geenaysaa meel goobka ciyaareed, madadaalinaysaa. boqoradu sidoo kale waxay ciyaaraysaa ciyaaraha ay jeceshahay Mia. sidoo kalena labadooduba waxay wada galayaan sawiro. sidoo kalena waxay cunaan cuntada ay jeceshahay Mia. markay guriga kusoo noqonayaan gaariga waxaa wadaysa Mia. laakiin markay isku dayeen meeshan foosho, gaarigii wuu xumaanaya, yacni wuu halaabaya. waxayna ku dhacaysaa gawaarida caanka San Francisco laga leeyahay oo dad fara badan ay saaran yihiin. booliiskan waxay isku dayeen inay xiraan Mia, laakiin boqoradu si fiican ay ula hadlaysaa booliiska. sidoo kalena waxay ku qancinaysaa ay iska sii daayaan iyada. dambeena xitaa booliiska wuxuu yaraa gaari booliisa si ay boqortooyada ugu celiyaan guriga. aad bay ulyahaysaa xirfad hadalka ay leedahay eeyadeeda. waxay ugu wacaysaa markaas inay tahay boqorada ugu fiican. kadib markii la gaaro maalinta xigta iskuulka waxay imaanayaan caruur fara badan. markaasi waxay ka dalbanayaan saxiix. horena dadkaas oo idin looma arki jirin, laakiin hadda iyadoo qof caan ah iskuulka odhan ayaa ka hadlaya oo ka sheekaysanaya. Alana waxay iska dhigaysaa saaxiibadeeda si ay caan u noqoto. Josh wiilkii ay jecleed wuxuu ku casuumay maalinta sabtida xaflad xeebta ka dhacaysa. way aqbalaysaa, waxayna raaligelin siinaysaa Michael. waxayna u sheegaysaa inay imaan karin bandhigiisa. Michael wuu murugoonaya, wuxuuna malaynaya in isaga ay ugu tagtay Josh jartiis. habeenkiina hooyadeed waxay u sheegaysaa Josh inuusan horey u jeclayn. keliyatan wuxuu jeclaaday markuu ogaaday inay noqotay Mia. laakiin Mia hadalkaasi ma dhageysanayso. xaflad xeebtan si fiican ay u bilaabanaysaa, laakiin saacado kadib meesha waxay imaanaya wariyaal waxayna raadinayaan Mia. Josh meel ay wada fadhiyaan, laakiin Josh wuxuu isku dayay inuu dhunkado Mia. markaasna Mia way diidaysaa, waxayna dareemaysaa waxyaabo fara badan inay qaldan yihiin. kadib markay banaanka soo baxaan, Josh wuxuu bilaabay si qasab ah inuu dhunkado Mia si ay warbaahinta isaga wax ugu qorto. kadib lana ay saaxiibadeeda waxay qiyaamayaan Mia. waxay ku qancinayaan teendhada inay kusoo bedesho dharkeeda, isla markaasna waxay wacayaan cameraman si uu sawir ugu qaado iyadoo shukman oo keliya xiran. sawiradaas ayaa ku weynaanaya. markay guriga ku laabatana Mia way ilmeynaysaa, iyadoo weliba ku oynaysaa gacmaha hooyadeeda. subaxda xigtana sawiradii waxay tagaan warbaahinta, waana xunxun aan laga soo qoraya. boqoradan way ka xanaaqaysaa Mia, way raaligelinaysaa boqoradii. sidoo kalena waxay qiranaysaa inaysan u qalmin inay noqoto amiirad. boqorada hadalkaas ma dhageysanayso. mar kale Mia waxay ku casuumaysaa xaflad kale oo weyn, waxayna u sheegaysaa inay keensan karto saaxiib kasta oo iyada doonayso, laakiin marka laga reebo Josh. marka Mia baxdo, Joy wuxuu boqorada u sheegaa in Mia ay weli tahay gabar yar, iyadoo adigu waxaa tahay eedeeda ka hor intaysan noqon amiirad. markaasi labadooda waxay ku heshiinayaan Mia inay diyaar u tahay mas'uuliyadda, sababtoo ah iyada waxay qaadatay dhaleeceynta. sidoo kalena way isku saxday qaladkeeda. sidoo kale iskuulkan Mia waxay raaligelin siinaysaa Lily, waxayna ka raaligelinaysaa nafteeda xataa inaysan aqoon maalmahan sida ay tahay. sidoo kale waxay kusii raaligelinaysaa barnaamijka Lily ku casuumaysa inaysan imaan iyada. labadoodana markaasi ay mar kale heshiinayaan. adigana daawadaha ilaabin muuqaalka ah ina like inoo saarto. markaasi ay waxay go'aansanayaan inay wada tagaan xafladda. fasalka ciyaaraha Josh mar kale ayuu ku maadaysanaya Mia kubadda ay ku dhufanaysaa. markaasi ay kaga adkaanaysaa ciyaar baseball si ay cashar uga barato. fiidkii Michael wuxuu keenayaa gaarigeeda, wuxuuna keenayaa goobtii dayactirka. Miana markaasi ay ka raaligelinaysaa inaysan iman bandhigiisii, waxayna ku casuuntay inuu noqdo saaxiibkeedii xafladda. laakiin Michael wuu dhaawacan yahay maskiinka, wuuna diidayaa. markaas ayuuna iskaftan wuxuu dhahay meeshaasi Josh ayaa ku habboon. markii la gaaro waqtiga qadada, Mia iyo saaxiibadeedii Nerdy way wada fadhiisanayaan, halka lana ay kooxdeedana ay ku qoslayaan. markaana way ku daashay xadgudubkani faraha badan. markaasina waxay jiraata marnaysaa dhar kalena, sidoo kalena waxay ku ceebeynaysaa dadka hortooda. maalintaas kadibna boqoradu way ka raaligelinaysaa Mia, waxayna sheegaysaa inay aad ugu adkayd. markaasina
waxay ka codsanaysaa inay qodbad ka jeediso xafladda. Khudbadaasina waxay ku diidi doontaa jagadeeda. Sidoo kale waxay siinaysaa buukir oo noot ah. Aabeed ayaa rabay inuu siiyo dhalashadeedii 16aad. Markaasi ayay Mia waxay codsanaysaa inay carto dhanka iyo Colorado, waxayna ka baqaysaa inay niyad jabiso boqoradii dadka xafladda jooga. Mas'uuliyadana aad bay ugu culus tahay, waxayna dooranaysaa jidka ugu fudud ee ah ka cararidda, inay meesha ka cararto macnaha. Markay boorsideeda xirato waxay arkaysaa warqad uu qoray aabaheeda. Kadib waxay bilaabaysaa inay akhrido warqadaasna waxaa ku qoran oo aabaheeda ka hadlaya geesinimada. Wuxuuna dhahay boqorka ama boqorada waa inuu noqdaa qof geesi ah. Kaloo meesha ku qoray inuu jecel yahay ayadii hooyadeedaba. Hadalkaasina aad buu u taabtay Mia, waxayna bedeshay go'aankeeda. Markaas ayay waxay bilowday inay go'aansato inay aado xafladda, maadaama dadku ballan qaaday inay imaanayso. Iyada kaligeed ayaan gaari soo kaxaysay. Roob aad u xooggan wuu da'ay, balse nasiibdar gaariga ayaa jidka uga halaabaya. Dhanka kale Michael wuxuu helayaa biisi ay ku qoran tahay raaligelin. Markaas inuu fahmaya Mia inay isku dayayso inay isaga wanaajiso, wuxuuna go'aansanaya inuu aado xafladda. Markuu Mia gaariga ka halaabay iyo jabtay, balse Joe ayaa imaanaya welibana isagoo wato limo, wuxuuna geenaya xafladda. Mia markaan soo daaday boqorada waxay bilaabanaysaa khudbadeeda. Intay hadlaysan waxay arkaysaa Mia oo qoyan meesha timaaday. Markaas ayay xubinaanaysaa masraxa. Markii hore Mia way hadli kari weynaysaa, iyadoona dareemaysaa cabsi iyo gariir fara badan. Laakiin markaasi markay xasuusanaysaa hadalkii aabaheed, iyadoona markaasi jeedinaysaa khudbad ka timaaday qalbigeeda. Dhammaadka khudbadan waxay ku dhawaaqaysaa inay ciidataa amiirada Genovia, tii oo idilna u sacabtumaan. waxaar kadibna waxaa loo caleema saaraya amiiradnimada, waxayna xiranaysaa dhar qurux badan. Sidoo kalena waxay ciyaaraysaa Michael. Kadibna labadooduba waxay usoo baxaan banaanka dhanka iyo beerta. Michaelna wuxuu sheeganaa dhammaan dareemihiisa, markaasi labadooduba isfahmayaan. Mar kale Mia waxay u doonaysaa dhanka iyo Genovia si ay u noqoto boqorad rasmi ah. hooyadeedna way la guuraysaa oo kama harayso. Michael iyo Lynn waxay imaanayaan fasax xagaaga. Imkii maantana wuxuu ku dhamaanayaa qasriga weyn ee boqortooyada Genovia. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay. Fadlan like noo saar muuqaalka, sidoo kale channelkan subscribe soo dheh. mahadsanid.